بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الحق تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. salaanta dabcan iyo guddoonka labada aqal iyo xildhibaanada iyo guddida doorashada qabanqaabada madaxweynaha iyo warbaahinta iyo dhammaan waan salaamayaa. waxaan aayadda qur-aanka kariimka u akhriyey horta inaynu fahanno talada iyo mulkiga iyo maamulka ilaahay baa bixiya subxaanahu wa tacaala. qofka meeshan madaxweynaha ka noqonaya maalinta ay bishu tahay 15 May ilaahay agtiisa waa ka qoranyay subxaanahu wa tacaala, isaga ayuun baana bixiya. sidaa darteed qofku waa inuu ku iimaan qabaa haddii ilaahay uu u qoray subxaanahu wa tacaala inuu meeshan madax ka noqdo iyo mulki inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u bixiyo. midda labaad, nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi: innakum lataxrisuuna cala alimaara wa innahaa khizyun wa nadaama yowma alqiyaama, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. waxaad ku dadaalaysaan inaad xukunka iyo talada gacanta ku dhigtaan oo dadka aad u talisaan baad ku dadaalaysaan, laakiin maalinta qiyaamo waa murug fara badan weeye. waayo haddii qofku uu mas-uuliyadda ka soo bixi waayo ilaahay hortiisa subxaanahu wa tacaala qiyaamaha waxa uu ku mutaysanayaa cadaab iyo naar. waxyaabaha ugu naarta fog ama cadaabka ugu kulula addoonka gaaro waxaa ka mid ah malikun kadaab, qof boqor ah ama madax ah ama madaxweyne ah oo beenaalo ah. innagu maanta siyaasadeenna inta badan waxaa saldhig u ah qofku inuuna xaqiiqada sheegin oon runta sheegin. waxaa kaloo aayadda qur-aankan akhriyo hore ku jirta qofku marka uu talada gacanta ku dhigo uu mulkiyo, ila marka hore ilaahay baa bixiya subxaanahu wa tacaala, ilaahay baana ka qaada. laakiin qaabka ilaahay u bixiyo iyo qaabka ilaahay uu uga qaado qofka way kala duwan tahay. ilaahay wuxuu yidhi: qul illaahumma maalika almulki tu'ti almulka man tashaa. boqortooyada iyo xukunka iyo talada qofkaad doontaad siisaa, laakiin marka laga qaadayo ilaahay islaam ma odhan. wuxuu yidhi: watanzicu almulka miman tashaa. xukunka iyo talada iyo boqortooyadana ciddaad doonta waad ka siibtaa. sababtu waa maxay? waa laga siibaya leannu waa ku dheggan yihi kursiga si ciyaara oo muxuu ahaa fudud loogama dego loogama tago. marka ilaahay waa kaa siibaya. sidaasay runtii u kala duwan tahay. waxaan jecelahay inaan barnaamijka aan gudagalo oo aan kelimaad kooban ka idhaahdo, maadaama halkan aan isu soo taagay inaan hoggaanka dalka runtii aan qabto. waa kuma Ridwaan Xirsi Maxamed. waa laga yaabaa dad badan oo hadda muxuu ahaa runtii baarlamaanka iyo ku jira dee inaanaan aqoon isu lahayn, marka wax yaroo kooban ma raba inaan ka sheego. magacaygu waa Ridwaan Xirsi Maxamed. waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa 1966. waxbarashadana dabcan magaalada Hargeysa aan ku qaatay waxbarashadeeda hoose ee dugsiga hoose iyo dhexe iyo muxuu ahaa dugsiga sare intaba technical institute Hargeysa. jaamacadda ilaa iyo markaasi master degree-ga iyo PhD-da runtii iyadana aan register gareeyey waxaan ku sameeyey dalka Suudaan. markii dambe waxaan macallin ka noqday 1996 ilaa 2003 waxaan macallin ka ahaa jaamacadaha Yemen. 2 jaamacadood oo Yemen ayaan runtii macallin ka ahaa. waxaana dhigi jiray af Carabiga oo carabta lafteeda ayaan af Carabiga aan u dhigi jiray. 2009 waxaan ku biiray baarlamaanka Soomaaliya ilaa 2016 baarlamaanka ayaan ku jiray, laakiin ka hor 2003 waxaan ku wareegay safaaradda Soomaaliyeed ee Sanca oo aan markii hore ka noqday la taliyaha arrimaha dhaqanka, markii dambena la taliyaha arrimaha siyaasadda. 2014 waxaan ka mid noqday golihii wasiirada waqtigaas iyo anoo ka noqday ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka arrimaha diinta. runtii intaas waa in kooban aan doonay inaan ka idhaahdo taariikh nololeedkayga oo kooban. waxaa isweydiin leh
buugga laga yaabaa inaad ka akhrin doontaan barnaamijkayga faahfaahsan laakiin waxay ahayd buugga ama wakhtiga ka hor in la qaybiyo ama kadib in la qaybiyo waayo waxaad ku mashquulaysaan inaad akhrisataan maadaama waxyaabaha ku qoran wakhtiguna saamaxayn runtii inaan meeshan ka sheego waxaan jecelahay inaan dul maro si aan wakhtiga u beeqaamiyo dabcan waxyaabo isku mid ah laga hadlay waxyaabaha aad looga hadlay dastuurku waa ka mid laakiin anigu dastuurka waxaan aaminsanahay laba meelood baa ciladiisu iyo mushkiladiisu ay taagan tahay mid waxa weeye dib u eegidda dastuurka oo xukuumadihii hore oo dhammaan ay ku fashilmeen midna waa ku dhaqanka dastuurka aynu aaminsannahay inuu habayn iyo hufid iyo wax ka bedel u baahan yahay ayaa haddana inta inoo taalla aan lagu dhaqmin oo laga tallaabsadaa oo wixii la rabo mararka qaarkood la iska sameeyaa marka haddii ilaahay idmo waxaynu u baahanay dastuurkana in lagu dhaqmo dib u eegid saxana lagu sameeyo arrinta labaad waa garsoorka iyo cadaaladdu aad looga hadlay runtii wax aad looga naxa ah in shacabka Soomaaliyeed meelaha hadda ay dawladdu ka taliso aanay jirin kalsooni badan oo garsoorka lagu qabo meelo badan sababtuna waxa weeye garsoorka dadkii loo dhiibay ee mas'uulka ka noqday ama muxuu ka shaqeynayay in aanay tayadoodii wax badan ay ka maqan tahay cadaaladii inaanay oofin baa laga yaabaa ku dhaqankii muxuu ahaa qawaaniintii disto u yaalay muxuu garsoorka inaanay ku dhaqmin baa laga yaabaa dhibaato badan baa ka jirta waxa kale oo runtii aan aaminsannahay oo kulligeenan ka hadalay maxkamaddii dastuuriga dalka ilaa maqan sababay muuqata lama yaqaan ilaa 2012kii maxkamad dastuuriga lama dhisin nin waliba markuu xukunka fuulo waxa laga yaabaa inuu isleeyahay haddaad maxkamad dastuuriga dhisto ama golaha adeega garsoorka aad samayso taladaadii way mataanowday oo taladii markaas waa lagu la yeeshay waxa kale oo muhiim ah garsoorku inuu noqdo garsoor madax bannaan oo ka madax bannaan fulinta iyo baarlamaanka labadaba waxa ku qoran buugga arrimaha bulshada arrimaha gudaha oo federalism runtii ay ka tahay arrimaha dibadda oo ah laba qodob oo muhiim ah qodobo badan baa ku qoran laakiin waxa nuxurkeedu noqonayaa madax bannaanida dalka runtii inaan ilaalino iyo inaan iska joojino faragelinta dibadda dalkeennu waxa naafeeyay in aynu u nugulnahay faragelinta dibadda inaynu u nugulnahay waxaad maqlaysaa dawlad hebla ayaa lacag keentay dawlad hebla ayaa doorashadii la sugaya oo bal waxay keenta ayaa la eegaya dawlad hebla ayaa arrintii maxay tahay gacanta ku hayso inuu doonayna inaanu u daba fadhiisanno dalka Soomaaliya wuxuu ahaa dal wuxuuna yahay dal madax bannaan oo haybadiisa iyo karaamadiisa iyo sharaftiisu runtii ay xoogan tahay meel istiraatiijiyana ku yaala marka labada arrimoodba waa in laga baxaa oo meesha ay ka baxdaa arrimaha bulshada dabcan inaan ku celiyo mar rabo waxyaabihii murashaxiintu dhammaantood way sheegeen in wax laga qabto caafimaadka in wax laga qabto waxbarashada in wax laga qabto deegaanka in wax laga qabto muxuu ahaa horumarinta reer miyiga waxaas oo dhan meesha ayaad ku arki doontaan arrimaha dhaqaalaha iyadana waa sidoo kale oo kaabayaasha dhaqaalaha iyo muxuu ahaa dhammaystirka sharciyada maalgashiga ka faa'iideysiga khayraadka dabiiciga ee dalkeennu uu leeyahay iyo soo saaridiisa waxyaabahaas oo dhan waxa laga yaabaa inaad meesha aad ku aragtaan sidoo kale dawlad wanaagga waxa bays u ah la dagaalanka musuqmaasuqa iyo eexda iyo qaraabakiilka iyo muxuu ahaa inaad nin jeclaysiga iyo xulufaysiga waxaasa bays u ah intaa haddaan ku dhaafo arrimaha guud ee aan kaga hadlay barnaamijka markaa ii diyaarsan waxaan jecelahay 3 arrimood inaan si fiican u taabto oo dila dhagaysataan 3 arrimood arrinta koowaad waa arrinta diinta weeye arrinta diinta runtii waa very important weeye dastuurkana waxa ku qoran qodobka 2 waxa ku qoran islaamku waa diinta dawladda waxa faqradiisa 2 ku qoran diin aan islaamka ahayn laguma faafin karo dalka waxa kaloo qoran lama soo saari karo sharci aan waafaqsanayn mabaadi'da guud ee shariicada islaamka iyo maqaasideeda qodobka 3 dastuurkuna wuxuu qorayaa dastuurka Soomaaliya waxa saldhig u ah quraanka kariimka ah iyo sunnaha nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
iyo maqaasi iyadoo waxaanu ilaalinayaa maqaasidda shareecada iyo ujeedooyinkeeda sidoo kalena waxa uu xoojinayaa cadaaladda bulshada qodobadaasi waa qodobo aasaasi u ah dastuurkeenna laakiin ma lagu dhaqmaa su'aashu waa taas weeye dadka qaarkood waxaan doonayaa inaan tajribo aniga isoo martay idinka sheekeeyo markaan ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka wasiirka arrimaha diintana aan ahaa waxaan golaha wasiirada markay dhion soo bandhigay shuruucda aynu doonayno golaha wasiirada in laga ansixiyo oo baarlamaanka loo gudbiyo waa in wasaaradayda la soo mariyaa wasaaradda arrimaha diintu waa inay soo abruuf garaysaa leanna waa inaan hubinnaa inay shareecada islaamka waafaqsantahay in kale rag saaxiibadoo golaha wasiirada ka mid ah waxay yidhaahdeen war wadaadka shabaabka inaga qabtay wadaadka shabaabka ah xageebu ka soo baxay dhibta taallaa waxay noqotay oo diinteennii suubanayd iyo sunnihii nebiga sal alla alay wasalam iyo qur-aanka kariimka ahaa aynu u dhaxaynaa maanta dad leh oo nimanka hadda muxuu ahaa inala dagaalamaya oo dadka intii kale gaalaysiinaya oo shareecadii islaam kale annaga keliya ayaa ku oogan oo taagan iyo in kale oo ka carartayba oo haddii lagugu maqlo shareecada islaamkaynu dabaqaynaa waa taa lagu leeyay waxa laga yeedhan lahaa ninkaasi waa shabaab dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin diintu inay ku koobnaato qofka iyo addoonka iyo ilaahay dhexdiisa oo aanay soo dhaafin oo cibaadada salaadda iyo soonka iyo laakiin waxaan doonaya inaan idiin sheego xataa salaadda nebigu qur'aanka kariimka ilaahay wuxuu ku yidhi inna asalaata tanha cani alfaxshaa'i waalmunkar salaaddu waxay kaa reebaysaa xumaanta iyo munkarka ayay kaa reebaysaa dee waxaan u malaynayaa 15 waa la soo yareeyey 2 daqiiqaad soo hadhay buu yidhi marka horta arrimaha diinta waxa weeyaan waa qodob muhiim oo runtii aan doonayay inaan ka hadlo arrinta kale aan doonayay inaan ka hadlo waxa weeye arrinta amniga waxaa bays u ah nolosha oo dhan baa bays u ah haddii amni la waayo waxaa imanaya darxumo iyo gaajo iyo dhibaata imanaysa ilaahay wuxuu quraanka ku yidhi alladii atcamahum min juucin wa aamanahum min khawf aayad kaloo qurayna ilaahay wuxuu ku yidhi wuxuu sheegay wadaraba allahu maalan qaryatan kaanat aaminatan mutma'innatan ya'tiiha risquhaa ragadan min kulli makaan fakafarat biancumi illaah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawf bima kaanuu yasnacuun amnigana runtii waxaa tiirar u ah awood ciidan oo xoog leh inaynu dhisno iyo dib u heshiisiin inaynu galno oo kooxay naga soo horjeeda si dhiigga daadanaya loo baajiyo labadaa qodob baa tiir u ah maadaama wakhtigu cidhiidhi yahay qodobka saddexaad aan doonaya inaan ka hadla waxa weeyaan arrinta somalilan waxaan jecel inaad si fiican u dhegaysataan saaxiibbaday aad bay uga hadleen waxaa la soo qaaday arrinta somalilan marka laga hadlayo in barnaamijyada qofka ugu wanaagsan uu yidhaahdo walaalaheenna somalilan wixii ay tabanayaan waxbaanu ka qabanaynaa runtii waxaan jeclay inaan sheego qadiyaddu cumqiga ay leedahay inaynu dareenno waxaa kala dhantaalan midnimadii soomaaliya baa kala qaaran ee 60kii laysu keenay oo isu yimaadeen somalilan iyo soomaaliya isu yimaadeen arrintaasi intay dhantaalan tahay qaran soomaaliyeed oo mid ah oo dhismaya ma jiro sidaa darteed waxaan aaminsanahay sida loo adarays garaynaya looga hadlaya qadiyaddu inay ka duwan tahay qadiyad cod lagu raadiyanayana ma aha waxaa la isweydiiyaa wadahadal baa soomaaliya iyo somalilan u bilaabmay laakiin wadahadalkaasi halkee buu maraya waxaan anigu aaminsanahay wakhtigii uu bilaabmay ilaa maanta marna xildhibaan baan ahaa marna ra'iisul wasaare ku-xigeen baan ahaa wasiir baan ahaa somalilan arrinta wadahadallada serious bay ka ahay waxa la mariyey golayaasha ay leeyihiin baarlamaankaa la mariyey guurtidaa la mariyey xukuumaddaa la mariyey xisbiyada qarankaa la mariyey laakiin halkan serious lagama ahayn one day golaha wasiirada lama keenin wadahadallada soomaaliya iyo somalilan oo lama adarays garayn baarlamaankana lama gelin oo lagama hadal waxay ahayd malaf qofku uu damco in maalin markaa shir la isugu yimaado oo lagaga wada hadlo keliya ayay runtii taagneed waxaan aaminsanahay somalilan maxaa ka maqan dadka qaar baa idha caasimaddaannu siinaynaa madaxweynea la siinayaa anigu waxaan aaminsanahay inaanay arrintu intaa ahayn ay ka xeel dheer tahay waxaanan qabaa haddaa halkan aan madaxweyne ka noqdo waa 1 minute igu dara ninkoo raalliga
waxaan aaminsanahay haddii aan madaxweyne ka noqdo in aan furaha xalka qadiyaddaasi aan gacanta ku hayno oo barnaamij cad iyo qorshe cad runtii aan ka leenahay waxaan doonayaa waan soo gabagabaynaya may 1 minute idinkoo raaliya waan dhammaynaya waxaan ku soo gabagabaynayaa arrinta ku saabsan waa soo gabagabaynaya waxaan ku soo gabagabaynayaa arrinta ku saabsan madaxweynenimada iyo cidda xaq u leh oo la leeyahay dad gooniya bay ku suntan tahay waxaan aaminsanahay dadka ku suntani iyaga ayaa codka bixiya waxaan aaminsanahay codkiinna inaadna siisaan oo aan madaxweyne ku noqonno oo aynu ku jabinno sistamka maxay tahay qoriisu dhiibka ah inaynu ku jabinno ayaan runtii aaminsanahay waa mahadsantiin